yahuudiyadan oo markii hore ku jeesjeesi jirtay ciidul adxada muslimiinta daawo ugu dambeyn waxa ku dhacay mucjiso aad u weyn subxaanallah. haddii aad aaminsan tahay udxiyadu inay tahay sunno nebiga xaggiisa ka ahaatay sallallahu calayhi wasallam, muuqaalka like saar una sii sheergalay dhammaan dadka muslimiinta sidoo kale afkaaga ku carfi dikriga ilaahay iyo saliga nebiga sallallahu calayhi wasallam. muslimiin badan ayaa xasuustay gabadhan yahuudiyadda ah oo maalinkaas ku jeesjeestay ciidul adxada, kadibna nolosheeda oo dhan ayaa isbedeshay markay aragtay runnimada iimaanka dadka muslimiinta ah iyo quluubtooda naxariista ku jirta. sheekadeedu meel walba ayay ku faaftay, dad badanna waxay aaminsan yihiin inay sheekadeedu dhammaatay kadib markay islaamka soo gashay, laakiin xaqiiqadu waxay tahay islaamnimadeeda kadib wixii ay la kulantay ayaa ahaa mid la yaab leh. sanado ayaa maray gabadhan islaamnimadeeda, magaceediina waxay ku bedeshay maryam. hantideedii waa ay dhammaysay, hantideedii maguuraanka ah waa ay iibisay, waxayna bilowday inay ku noolaato nolol basiid ah, nolol dhexdhexaad ah oo caadi ah. maalmaha ay aadka u jeceshahayna waxay ahaayeen maalmaha ciidul adxa, maxaa yeelay waxay xasuusanaysaa maalinkii uu ilaahay subxaanahu watacaala qalbigeeda hanuunka u furay. mid ka mida sanadaheedii ciidul adxadii oo aan la gaarin oo ay maalmo yar ka dhiman yihiin, maryam waxay go'aansatay inay u safarto tuulo yar oo dad dan yar ah ay deganaayeen mid ka mida dowladaha muslimiinta. waxayna heshay xog sheegaysa dadka tuuladaasi degan in aysan heli karin waxay ku iibsadaan xoolaha udxiyada. waxay la shaqaynaysay hay-ad khayri ah, baabuurkeeda ayay wadatay, tuuladii ayayna aaday. waddadu waa ay dheereed, waqti badan ayayna kusii socotay. ugu dambeyn xilli casir ah ayay tuuladii ku soo aaday. guryo yaryar oo nolol hoose ah ayay degan yihiin, nolol aad u hooseyda ayay ku nool yihiin, ilmuhuna meelaha ciidda ah ayay isaga ciyaarayaan. saare aad ayay ula murugootay waxay aragtay, maxaa yeelay faqrigii ayay indhaheeda ku aragtay. maryam oo tuuladii iska dhex maraysa ayaa aragtay wiil yar oo keligiis iska fadhiya derbi cidla ah, dadkana si aamusnaan ah u fiirinaya. maryam way ag fadhiisatay, waxayna ku dhahday magacaa. wuxuu dhahay magacaygu waa yuusuf. way u dhoola cadaysay, waxay ku dhahday aaway aabbaha. isaguna si murugo ah ayuu u dhahay aabbahay xilli hore ayuu geeriyooday. hooyadayna waa ay murugaysan tahay oo waxay dhahaysay sanadkan ma helayno wan aan qalanno ciidul adxada. garabkiisa ayay fadhiisatay, waxayna dhahday maxaa tamaninaysaa yuusufow ciidan? wuxuu yidhi waxaan jeclaa lahaa inaan arko hooyaday oo faraxsan, hameen walba waa ay oysaa. saaxiibteed saare oo caawinaysay ayay fiirisay maryam, kadibna waxay ku dhahday gurigan ayaan ka bilaabi doonaa insha allah. dadkii tuuladu subaxdii ku xigtay waxay ku soo baraarugeen arrin kadis ah oo aysan filayn. waxay arkeen gaadiid waaweyn oo sida xoolihii udxiyada, cunto iyo dharkii ciidda. shaqaaluhuna isla markiiba waxay bilaabeen inay alaabtii u qaybiyaan qoysaskii danyarta ahaa. qof walba gurigiisa ayaa loogu geynayay. ilmihii tuuladana farxad iyo reynreyn ayaa halkaasi uga bilaabatay. wiilkii yare ee yuusufna hal mar isagoo aan filayn wuxuu arkay gurigooda hortiisa wan qurux badan oo cad oo taagan. waxaana kaloo loo keenay kiisas ay ku jiraan cuntooyin iyo dharkii ciidda asaga iyo walaalihiis. yuusuf hooyadiis ayaa soo baxday ayadoo aan rumaysan waxa dhacaya, waxayna dhahaysay maxaa dhacaya? shaqaaluhuna ayagoo dhoola cadaynaya ayay dhaafeen. hameenkii xigay subaxaas, maryam oo iska joogta halkii ay tuulada ka deganeed ayaa waxaa u yimid nin oday ah oo da-ah oo dadkii tuulada ka mid ah. wuxuuna ku dhahay gabadhaydiyey dadka tuuladu waxay rabaan inay kuu mahad celiyaan. kadibna si degan ayay u dhahday aniga ha ii mahad celinina ee ilaahay u mahad celiya. odaygii ayaa cabbaar fiiriyey, kadibna wuxuu dhahay arrin kale ayaan rabaa inaan kuu sheego. wiilka yar ee yuusuf ah ee aabbihiis geeriyooday oo aad caawisay, aabbihiis wuxuu ahaa imaamkii masjidka tuuladan muddo dheer. wuxuu ahaa nin wanaagsan oo saalax ah oo dadka fuqarada ah caawiya asagoo danyar ah.